waxaa ku jira qisada nebi muuse calayhi salaam iminka aynu dhegaysanayno suuratu lqasas aayadda 23 ilaa 28 qiso soo dhex gasho sheegaysa nebi muuse calayhi salaam isagoo fakada buu meesha madyana yimid fircoon ka soo cararay halkaa dumar xoolo waraabinayo ugu yimi oo u waraabiyey aabbahood bay u geeyeen inan buu u guuriyey 10 sano halkaa ku qaatay qisadaasi markaa waxa aynu ka fahmayno haddaynu ka soo hadalnay kelmaddii tan ka horreysay waxaa siyaasiga wanaagsan kanina waa xaaska wanaagsan ama sayga wanaagsan ama oorida wanaagsan astaanta koobaad waa maxay astaanta koobaad waxa weeye diin haddii siyaasiga fiican astaantiisu ay diin ahayd qoyska wanaagsanna astaantiisa ugu qiimaha badani waa diin qof diin la wax daryeela qof aan diin lahaynna waxba ma daryeelo qisada 5 arrimood baa ku jira ta horeysa waxa weeye nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo u yimi ummad xoolo waraabinaysa maaha qof iyo laba waa ummad dad badan baa meeshii ceelka xoolo ka waraabinaya 2 hablood oo iyaga ka mid ah oo adhig horayo la il daran ayay ka nixi waayeen isagu markaa hablaha cadilana rafaadsan cilada adhiga ku warwareejinaya uu ka naxay naxdintaa waxaa keenay diinta iyagoo ma ay ka naxaan reerkoodii baa hayaan ila isma aqoon safar buu isagu midka labaad hablihii mid ka mid ah buu aabaheed u soo diro nebi muuse way soo kaxaysay ama isagu ha ka horeeyo ama iyadoo ha ka horeyso inantii markii aabaheed u keentay warbixin bay samaysay odaygii oo aabba aha culimada qaarkood waa Shucayb bay yidhaahdaan qaarna waa addoon kale oo wanaagsan buu habay leeyihin waxay leedahay yaa abati istaajirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin aabba shaqasi waa nin ammaanana leh awoodna leh way caashiqday wax la caashiqana qof labadaas sifalaba u wanaagsan way ku turqatay hadaad wuxuu ku turqanayso mid dalaalayo muruqiyo ku soo waxba bidhaansanine oo xabiibi kulaha diiniye imaan ku dooro daayarta aan wali guursan baynu la talinayna haddaynu odayaashii ka horeeyay waay inantu markaa labadan arrimood ee xariiqday siday ku ogaatay quwadiisa waxay ku ogaatay sidoo ceelka u shubay isu laba rogaya raggii meesha joogay uga fiican waxay tiri walaahi kaas adigii odayga waa idin shaqayn karaya ilaa maslaxada qof ku shaqaynaya la dooranaya amaanadiisana daanin inan la gooni noqdo oo kaynta la soo marayo aan laba hadalba wallahi waa nin la isku aamini karaa waa cafiif dhowrsoon wasadex sifada afraad waxa weeyaan diinta ka imanaysa waa qof wacad leh oo ballan leh qofka diinta leh qofka kale waa wacad laawe wixii ku heshiiseenba uu kaaga baxaya haday guur tahay iyo haduu wuxuu ballan qaaday tahay beenu ku dhiidhiibaya wuxuu kula adeer runina beenina waa tii lagu soo kaxeeyay runina waa tan reerka hadda taala markii hore been baan kugu soo waariday oo kugu soo kaxeeyay runtiina wixii aan ku sheegay oo dhamma jiraan waa tan ayuu kuleeyay laakiin 10 sanadood buu ballan qaaday inuu ariga raaciyo oo inantaa meher looga dhigay 10 kiiba waa oofiyay marka qofka diinta leh waa qof ballan leh marka shanaadaynu ka faa'iideysanayna waxa weeye qofka diinta leh waa qof xishood leh waa marka quraanku hoosta ka xariiqo tilmaamay waxay u timi hablihii mid ka mid ah nabi muuse ala istixyaa iyadoo xishood weyn wadata xishood bay ku dul sugantay calaad waxay isticlaab ay muujinaysaa iyadoo si fiican u xishoonaysa u timi marka qofka diinta leh waa qof xishoonaya sidaasaa qur'aankeena uu faray qofka waa doorashadii ka hadlayna qoysaska wax badan waxa burburiye debadiyo gudaba doorasho xumo markaanay inantu iska dooranin wanaagsan qoysku burburaya ninkii markaan oori fiican caruurta u doorin ay dhalayso reerkii waa burburaya sidaa daraadeed baa si aan burbur loogu dhicin islaamku marka horeba intaan la isdhexgelin buu doorasho shardi ka dhigay in la isdoorto diin la isku doorto wala abdun mu'minun khayrun min mushrik wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika aayadaha guurka markay bilaabmayaan suuratul baqara ilaahay wuxuu leeyahay
addoon ama addoon ilaahay rumeeya ka fiican gaal wuxuu doonaba haysto lala yaabsan yahay iimaanka ku doorta waa qurux qarsoon kana qurux muuqato oon qiimo lahayn weeye waxaa jira qurux iyo qaayo af soomaaliga quruxdu waa madharka qaayuhuna waa tayada marka labadaa la isba dhaafsaday qofka qaayihiisa lagu raacaa qiyamkiisa hadduu sidaa qur'aanku yidhi qofka in qiyamkiisa iyo diintiisa lagu dooranayo xadiidkii saxiixa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi dadku inanta waxay ku xushaan ninku markuu guursanaya 4 quruxdeeda qoladeeda iyo maalkeeda iyo diinteeda ta diinta leh buu nebigu hoosta ka calaamadiyey ninkiina marka ay oridu xulanayso ama ehelkeedu la xulayo waxaa loo shardiyay maxay idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh qofaa diintiisa iyo dabeecaddiisa ka raalitiin marka uu yimaado u guuriya xadiidkii xasanka ah culimo badan ba xasan ku sheega idan halkaa waxaynu ka aragnay maxaa diinta shardi looga dhigay haddii waxyaabahan kale qofka lagu doonto ka war haddii waxyaabahan kale qofka lagu doorto ku daryeeli maayo waxaanad ku aaminay ubadkaaga iyo adduunkaaga iyo ammaanadaada iyo asraartaada iyo naftaada midna kuma aaminaysa imisaa nin dilkiisa loo soo maray ooridiisa xasan binu cali inankuu nebigu awowga u ahaa ooridiisaa loo soo maroo sunaysa laakiin qofka diin lihi wuxuu leeya ilaahay baa ka cabsanaya soo qofkan ilaahay ii qabsan maayo dilkiisa iyo khiyaamadiisa qofka diinta le duunyadaadaad ku aaminaysa ka kale laakiin waa laga yaaba islaanta inuu dahabkii iyo kishadda ka fadhataysto someedaan nin dahabkiiba ka xaday islaantii muxuu u keeni waa xadayaabee iyaduna dee isaga way xadiyo way casayn ilaa xaaraam iskama ilaalinaya qofkaiya naftiisa ku aamini maysidoo inay iyadu soo sinaysataabaa laga yaaba isaguna uu soo sinaystu qaraafo qofkii aan diinta lahayn kan kale laakiin diin baa xidhayso xaaraan buu arkaya waa qof aad aamini karto sirtii kabarad baaba laga yaaba inay kugu rakibto ama isaguna uu kugu rakibo marka la mujaamac ama la mucaamaloonayo dabeetana banaanka la dhigay misaan aragnay meelaha ka ashaadanaya ka qaylinaya wala waan isqablayo balaaya naga soo baxday haddaa isqabteen maxaa waxaan keenay waxaan waxa keenaya diin la'aanta qofkii dabar male maxaa kaa hakinaya wuu ku ciyaarayaa qofkii maalintay adkaato haddaanad naftiisii ku aaminin oonad taada ku aaminin oo maalkii aanad ku aaminin carruurtiina ku aamini mayse wuu kaaga tegayaa ninku carruurta iyaduna way kaaga carariyo mid kaley doonan afarteedana way kuu tuuri laakiin qofkan kale wuxuu guurkaba ka aaminsanyay qofka diintani in ilaahay loogu dhowaanayo waxyaabaa ilaahay loogu dhowaanayo loogu cibaadaysanayo ayuu guurkaba ka aaminsan yahay wuxuu leeyahy si ilaahay kaaga raali noqdo xuquuqda qofkan oorida iyo ubadka iska hagaaji alla ugu cibaadaysanaya dee way kala duwan yihiin qof danaysanaya oo raaxaysanaya hadduu doono kaa xiisa dhacaya iyo mid ilaahay kugu dhowaanayo diin u aaminsana way kala duwan yihin ma isku mid maaha saa daraaddeed arkaysaa ruux dumaroo meelaha ka qaylinaysa miyaan arkayba oday weligeyba waan waayay carruurtii buu ka cararay tee waan kaa xiisa dhacay buu leeyay iyana waan kaa xiisa dhacay waa ban ku shuufayba markii hore xabiibi iyo waxaas ilaa labada qof marka hore quruxdaa la isku eeganaya xoogaa maslaxada adduunaa la isku eeganaya shahrulcasalka iyo biraha hore marka la dhaafo ma intaasay ku joogaysaa dhalinyaro kuma joogayso shudhiiba walacbay bilaabaysaa waa taa hunqaacday sidaabaa kuma anaan moodayn buu leeyahy tii horeba mahida soo adigan madoobaaday dee wabaanu kaa xiisa dhacnay haddana way dhalaysaa ciyaal bay dhalaysaa wada jiiqlahoo wada hunqaacaya oo wada dhakhtar lagu wado oo wuxuu leeyahy wallaahi kelidaydii baaba laga qaatay ya waa maxay buuqan iyo saxmaddan aan galay guurkaba sidaan maan mooday soota raaxadiiba luntay kana dadkan oo dhan inuu wado oo uu xambaaru qaar u soo duceeyo ay noqdaanoo bulshada dad uu ku soo daro islaamka uu xoojiyaabuu ugu cibaadaysanay waa laba qof oo kale handuwan marka mushkiladan burburka inagu keenaysaa waxaynu dhaafnay shardiga asaasigaha kaba kacdadaha ka soo qaada noloshu dee sa aynu soo tilmaannay isagii baa bukoon karaya dabeetana noloshaba uu ka dhacaya raaxadii laga doonayeyba meesha way ka baxaysa galmadiibuu kari waaya shaqadiibuu kari waaya qofka muslimadda ahi ilaahay bay ugu cibaadaysanaysaa ninkan inay sido oo ay xambaartay u dulqaadatay nolosheeda u sabirto isaguna saas oo kale haddii ay bukooto oo xayaatadiiba ay ka dhacdo tuuri maayo
laakiin ilaahay buu ugu cibaadaysanaya inuu qofkan muslimka u sabro oo uu wado oo bulshada ka hayo oonu ku soo daynin bal ka war kan kalena wuxuu leeyahay miyaad haatan howlgabbaad noqotay dayna kala wadi anigu hamad baan rabaa bay leedahay isna hamad baan rabaa buu leeyahay dee adna howlgabbaad noqotay dee khalaas waynu kala dukaamaysanayna kala dhaqaajinay war markaa dadku waxaana isugu xiiqayaan isla wareereen waxay dhaafeen tilmaantii ilaahay subxaanaه wa tacaala ilaahay baa khalqigan abuuray markaa wuxuu tilmaamay marka haddii kambaniga gaadhigaa soo sameeyey uu idhaahdo boolkaasaa u muhiimsan boolkaa ilaasho qofka gaadhiga lo haddii boolkaasi uu kaa lumo ama muftaaxa dhe ama meel mashiinka ah dhe haddii halkaasi kaa xumaato weligaa gaadhigaasi kuu tamarin maayo qofkaasi waxaa laga yaaba 100 isbeer inuu boolkaa ka samaysto oo idhaahdo bal dardaaranka kambanigaa ilaali ilaahay dardaarankiisa haddaad dhegaysan weydana cirbaha ku goy marka waxaynu leenahay waxaasoo asraara ayaa ku jira diinha lagu doorto diinha lagu doorto marka la leeyahay dadka u qaba in shardigaasi uu ciyaar yahayna taladooda fuud kulul bay ka cabi khayrka allahayna waafajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi waslem subxaana rabbi